halkani waa guriga wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo arrimaha diinta ee Jamhuuriyadda Djibouti Dr. Aadan Xasan Aadan waxa si gaar ah u soo jeediyay indhaha saxafiyiinta gaar ahaan Maxamed Ciise Aadan qolka gaarka ah ee library-ga ama lagu akhristo buugaagta ee gurigiisa ku dhex yaala wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo arrimaha diinta Islaamka Dr. Aadan Xasan Aadan qolkani waa qol gaar ah oo lagu talagalay nasashada gaar ahaan waqtiyada firaaqada uu leeyahay wasiirku inuu waqtigiisa si gaar ah u qaato Dr. Aadan Xasan Aadan oo ahaa qoraa aqoon-yahan Soomaaliyeed samarahantaasina ka soo jeeda Jamhuuriyadda Djibouti ayaa ahaa gudoomiyihii hore ee qorayaasha afka Soomaaliga ee Somali Pen haatan isagoo arrimaha siyaasadda ku mashquulsan ayaa haddana waxa uu ku xusi doonaa isla waraysigan in uu mihnadiisa ama mihnadii qoraanimo oo ahayd waxa uu xiisaha badan yahay nolosha akhrinta iyo qoraalku uu ku qaatay inta ugu badan waqtiga yar ee uu firaaqada u helo inuu naftiisa la qaato waxaan si gaar ah ugu faalayn doonaa isla waraysigan gaarka ah ee Maxamed Ciise Aadan uu la yeelan doono wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo arrimaha Islaamka ee Jamhuuriyadda Djibouti qolkani gaarka ah ee library-ga ah ee ku yaala guriga wasiirka waxa uu qaybsan yahay gaar soo khaanad waliba ay sharaxayso qayb gaar ah oo markaasi macluumaadkeeda uu yahay khusuus waxa buugaagta library-ga yaala ka mid ah qaar ka hadlaya arrimaha dagaalka arrimaha siyaasadda arrimaha diinta arrimaha dhaqanka iyo taariikhda dunida gaar ahaan kuwa Soomaalida waxaanu waraysigan u gudageli doonaa haatan uu la yeelan doono wasiirka Maxamed Ciise Aadan oo safar gaaban ku yimid xarunta dalka Djibouti ee Djibouti بالوسيل واحد وبحين كون نقص الليبراري قاعد يرى كون واحد صوت تاريخه كلية مفهومتي قرابات هاي واحد هاي قدوميه سومالي بن وقت قاعد فراقة ضاع الحكم كو قامته الليبراري قاعد يرى سنة بس بالورا بحين يرى كون نقص بسم الله الرحمن الرحيم تا كان يرى في النصر الماضي ومكتب يرى كون oo inta badan waxa ay yaalayo waxa aan akhriyo inta ma ku shaqeynayo
ama inta maaragtaan aan kolkaasi akhriskayga aan u fadhiyo laakiin wixii buugaag ahaa kayd ahaan haystay kuma dhan oo halkan wada yaali xaraysan yihiin waktiga ugu macaan qaato oo waktiga aan halkan fadhiyo oo aan keligayna ahay hadda ma soo wada koobi karaya dabcan sidaan u isticmaalo laakiin waktiga igu wanaagsan aan qaato oo waktiga aan fadhiyo halkan buugaagtada aad ku interested buugaagtaasi kale waxay ku xidhan tahay topica aan markaa taagan ee baaritaanka aan ku sameynayo haddii uu yahay sugaan haddii uu yahay dhaqan haddii uu yahay siyaasad haddii uu yahay diin kolba wixii markaa topic ahaan aan hawsha aan hayo ee asaasiga ah ayaan dee ka isticmaalaa dhinacan kaa dambeeya waxa u badan maaragtay waa wixii diinta iyo khuseeyey arrimaha islaamka iyo guud ahaan diimaha oo dhan waxaa dhinacan kaa xiga maaragtay waa sidaad arkaysa caafimaadka iyo wixii ku saabsanaa example haddaan tusaale kusoo qaado halkaan dhakhtar joogin buuggaasi waxaan helay waxaa laga yaabaa inaan 20 sano ka hor kolkii aan ardayga ahaa maaragtay dugsiga dhexe de wiila soo guuraa wiila soo weynaada ama waxbaa kusoo koray inta kalena dabcan qaamuuska caafimaadka iyo xanuunada maaragtay casriga faraha badan ayay ka jawaabayaan sugaan taas harna waa sugaantii maaragtay af ingiriisiga ku qornayd oo sheekooyinka u badan iyo novels u badan waxii dagaalka iyo istaraatiijiyadaha ku saabsanaa saad u tilmaantayba marka adigu kolba wixii aan hayo laakiin waxaad ogaataa aqoontu xadna male ma kala qoqobna way wada galgashaa marka midda kale ay maaragtaan ayay kobcisaa laakiin waxaa jira eriyooyin marka bugaagta qaar aad akhrinaysid si gaara aad ugu raaxaysid sidoo macno weyn kuu sameeyo macno gaar ah tusaalahaan oo kale takhasuskaaga masterta waxaad ka samaysay istaraatiijiyadda iyo arrimaha militariga halkaana waxa yaala buugii aad turjuntay xeeladaha dagaalka oo intaas in jeclaan ayada lafteeda aad warbixin gaarsiisid iyo bugaagtaas xeeladaha dagaalka sidiisaba maaragtaan bini aadamku waxa uu ka shaqeeyahay waa sidii dagaal loogu hortegi lahaa wuxuu u jecel yahayna waa nabad iyo deganaansho cadowga deganaanshaha iyo nabaduna waa isla aadamaha waxa hub la samaysanayo waxa derbiga la samaysanayo waxa aad aragtay maaragtay maraakiib iyo diyaarado waxaasi waa sidii nabad loo sugi lahaa ee kuma jirto sidii cid loogu duuli lahaa ama loogu dagaal tegi lahaa laakiin sidii nabad loogu sugi lahaa baa loo sameeyaa wayse dhaaftaa waa lagu dagaalamaa iyadoo baa dhibtii keenta kolka xeelada ugu wanaagsan ee dagaal lagaga baaqan karaana waxa weeyaan inaad awoodii kaa celi lahayd cadowga samaysato weeyaan anigu intaanan dagaalada iyo military affairska iyo securityga iyo waxaanan aan baranin dee waxaan isku haystay inaan wax walba aqaano laakiin marka filligaa kale waxaan bartay inaan runtii jaahil ahay waxaan garanayaa jirin dib ayaan marka arday ahay oo baxrigaas imika un baaban albaabadiisa u furmeen oo takhasuskiisa ku jira waana runtii takhasus aad iyo aad u qaalib ah oo sidii dagaalada loogu hortegi lahaa sidii haddii ay dhacaan loo xallin lahaa sidii diblomaasiyad midabyo badan leh loo isticmaali lahaa ummadaha maaragta la isku dhex gelin lahaa iyo sidii regional integration loo samayn lahaa oo dadka gobolka degan ay dan ku dhahaati u wada yeelan lahaayeen iskuna taageersan lahaayeen waxyaalahaas ayaa kamid a maaragta waxyaalaha lagu baro cilmigaas way intaynan bugaagta kale u gelin waxaan jecelahay inaan arrimahaasi nabadeynta iyo sida dagaal loo baajiyo iyo isdhexgalka bulshada iyo aan kelmad kale kaa weydiiyo wax dhawaanta takatiradhasbaas raacdeen arrimo nabadeyn oo Ethiopia hawshaas arrinkaa lafteeda doonayana warbixin hadda weydiisay arrinkii ugaaska ismaana raacin laakiin hawshaas waxaa ahayd mission rasmi oo madaxweynuhu ay daray madaxweyne ismaaciil markii ay ahayd ugaas mustafa iyo maaragtay beelaha qaarkood oo xoogaa isku dhac uu ku yimid ugaaskuna uu maaragtay madaxweynaha kusoo cawday ahayd oo tiig uu madaxweynuhu markaa ay diray waxay hawl aad iyo aad u culus malaha odayda aad iyo da-weyn in loo dirana oo ku ficnay laakiin
أنا waxaan u fahmay inuu madaxweynuhu karaameeyay أنا cabsi igu jirtana waan tegay laakiin ilaahay wuu igu guuleeyay reer weyn oo maaragtay ciisaha curadkiisii ah curadkii ciisaha ayaa ugaaska ka carooday waxayna goosteen inaan maaragtay la shaqeynin aqalkiisa tegin arrinkaasi wuxuu ku keenay ciisaha wuxuu dhabarjab weyn ayuu ku keenay haddaan horey loo gaaro markaan waxaan aaminsanahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ilaahay inuu waafajiyay inuu xilli dhaqso ah ka fikiro in arrinkaa la gaaro laakiin waan haysanin inaan ahay anigu the best choice oo hawsha inuu qabto ay tahay waase galay waxaan la joogay qiyaastii 12 cisho finally reerkii celeeye iyo ilaahay muurtu nagada hogaaskii waan isku keenay waa isku duceeyay aabanimadiisii iyo in laga dambeeyana maaragtay waa loo fariistay abala lama dacweeye ciise hogaaskiisu waa aabihii si fiican bay dhacday ما شاء الله وقولها تاريخ runtii aad soo hoyseen kuga hambalyeynayno runtii da'daada iyo maskaxda ilaahay hibada ku siiyay aad bay u kala weyn yihiin waan ku hambalyeynayna geesta kale waxa aad dhawaanta ila lafteeda hargeysa lagu guddoonsiiyey oo weliba ku guddoonay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland shahaadada doctorate-ka ama honorable doctorate-ka halkaasi oo maalinta wixii ka dambeeyay ugu yeero Dr. Aadan Xasan Aadan bal waxaad dareenka ay ku leedahay in abaalmarinta caankaas lagu siiyo sabab waxaan warqadan ugu faraxsanahay sidan si hore u sheegayna waan ka xishoonayaa in aniga maaragtay karaameyn inta la karaamay waayo waxaan ku mutaystay ma jiro weli waan daayarahay inaan shaqeeyo oo wax qabto ayaa la iga fadhiyaa ama la iga rabaa malaha dee qoomiyadaha waxaan jeedaa jiilka iga dambeeya qiimeyn doona muxuu aadan qabtay ama taray inay qiimeeyaan laakiin anigoo weli dhalin yar in la yidhaahdo waxaad mutaysatay oo wax qabadkaaga baad ku mutaysatay waxaan islaahay way kaa weyn tahay oo ilaahay umuurtu naga leeyahay maad mutaysanin laakiinse aad iyo aad aan ugu farxay waan uga mahadcelinayaa runtii jaamacadda Golis iyo guddoomiyaheega Dr. Saciid iyo dhammaan maaragtay dadkii kasoo shaqeeyay hawshaasi sharaf gaar ah ay ahayd in madaxweynaha ku-xigeenka Somaliland uu maaragtay shahaadadaas ii guddoomo iguna soo wareejiyay watahay arrimaha dhaqanka oo kale waxaa tahay runtii waxaad qortay qaamuuskii isagoo dhowr jeer horena waad ka hadashay qoraalkiisa sidoo kale waxay wadeen akaademiyadii afka Soomaaliga in halkee ku mareen arrimahaas iyagu dhinacii turjumaada buugaagta iyo dhaqanka iyo afka Soomaaliga iyo akaademiyadii barnaamijyada inta ay xiriiraan Ingiriisi waxaan maxamedow inta ninka aan wasiirka ahay waxay ugu dambeeyeen qabtay waxa ahayd inaan turjumay buugaasi xayiraadaha dagaalka oo Sun Tzu qoray ahna runtii waxbarashadii u dambeysay takhasuskay ugu dambeeyay aan ka cabiray oo ina maaragtay reference shaqooyinka kale aan ku jirnay dabcan akaademiyadii inay saldhigto oo ummadda Soomaaliyeed ay dhammaan ku intifaacdo waxna ku qabsato ay ahayd waqtii xarunteedii aan la isku raacay inay noqoto Muqdisho halkaas ayaan maaragtay dhagax la soo dhigay qiyaastii sanad ka hor waxaan rajaynaynaa inay hawl gasho oo ay dhaqaaqdo waxaan se u malaynayaa weli sidii la rabay inaanay u hirgelin sababo far badan awgood oo ay ka mid yihiin dadka akaademiyada ka shaqeynaya oo dalal kala fogfog degan Muqdisho oo meel weli maaragtay saldhigatay oo nabada buuxda qabta aan ahayn xiriirka dadka maaragtay aqoon-yahanka ee maanta Muqdisho jooga iyo siyaasadda oo aan xiriir toos ah lahayn oo prioritieskii siyaasiyiinta ama maaragtay dadka hoggaanka iyo oon weli halka soo gaarsiisnayna u soo dhacdhacsanay sida iyadoo ah haddana waxaan rajo weyn ku qabnaa maadaama muasasadaasi ay samaysatay inay mid dadka anfici doonto tahay annaguna kagama hari doono oo waan la qabanayna goor walbana maaragtay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti in uu aabba ka yahay
xil ka saaran yahay hawshaasina ilaa intay meel dhalayso aan gacanta ku hayno uu rumaysan yahay iyo marwalba noo sheegaa. xagga qaamuuska iminka waxaan u galnay marxalad inaan u gudubno marxaladan ka dhigno online. marka hadda waxaan ka shaqeynaa sidii looga dhigi lahaa maaragtaan dictionary qaamuuska af Soomaaliga inuu noqdo online oo wixii lagu kordhiyo kolka maaragtaan la gelinayo maaragtaan la gelinayo mareegtaasi internetka la gelinayo haddii la yidhaaho. watay buuggan xeeladaha dagaalka oo kale runtii waa buug aada u qiimo badan. waxa uu anfacaya kolley ciidamada iyo dadka arrimahaasi dagaalka iyo howlaha ku hawla waan filaya. ciidamada weli ma isku dadan iyaga inaad u qaybisaan oo kale aad siisaan? maxamed, buuggan xeeladaha dagaalka asalkiisi waxaa loo qoray waa dagaal. okay, waxaana qoray nin maaragtaan nin military ah oo janan ah oo hogaamiya ciidamada maaragtaan boqortooyo la oran jiray maaragtaan Tishaay ayaa qoray. habase noqotee qarnigan inta aan joogno wuxuu u noqday sal u noqday culum fara badan oo iminka waxaa jira the art of war haddii uu ahaa, waxaa jira maaragtaan xeeladaha dagaalka ee guurka, waxaa jira xeeladaha dagaalka ee maaragtaan ganacsiga, xeeladaha dagaalka ee ciyaaraha. marka iyadoo laga dhaqaaqayo qawaacidda ku qoran buugga iyo xigmadaha halkan ku jira ayaa aqoon-yahano fara badan waxay u adeegsadeen in ganacsiga iyo ciyaaraha iyo wax kastoo lagu tartamayo inuu asal noqdo. marka maanta ma aha buug military oo saafi ah, muu noqonay buuggiisa wuxuu noqday buug sal u ah tartan oo dhan, wax kasta oo lagu tartamayo. marka wuxuu noqday buug laga qaato mabaadi'da guudiga laga qaadanayo nolosha. marka adduun waa baratono ninkii badayaa iska leh. geesta kale wasiir waxaa jira shirkii diinta iyo dhaqanka ee Djibouti. runtii dadkuna marka la dhacdo diinta iyo dhaqanka sida intaba kuma isqabanayaan dad badan leeyihiin. intii aad hawshaasi ku jirtay bal ka waran intii xilka wasaaradda adeegsay sida aad iskugu wado labada howlood iyo sida isku fahmeen shaqaalihii? arrinkaasi dhowr goor baa laga weydiiyey, dhowr goorna waa ka jawaabay oo anigu waxaan qabaa fikir ahaan diinta iyo dhaqanku inaanay col ahayn, inaanay iskala soo horjeedin. dadka muslimiinta ah dhaqankoodu wuxuu ku salaysan yahay waa diintooda, diintooduna waa qayb dhaqankooda ka mid ah. waxaana ku habboon ummadda muslimka ah dhaqankayga inay qiimeyso. haddii uu dhaqankayga ku jiro wax diinteeda ka hor imanayo inaanay dhaqanba ka dhiganin marka hore ay ka guurto oo ay iswaafajiso. waayo dhaqanku dadku siday aaminsan yihiin ma aha danska, ma aha qoobka ciyaarka, mana aha ciyaara faneedka aan naqaano. dhaqanku waa habka ummadi ay u nooshahay wey. xilliga ay nabadda tahay, xilliga ay colaad ku jirto, xilliga ay faraxsan tahay, xilliga ay murugaysan tahay, saacadda, maalinka, bisha, sanadka, nolosha oo dhan waxa ay rumaysan tahay ay ku nooshahay. waxaa weeyaan dhaqan. qaybihiisa faraha badan nolosha ah oo dhan oon dhaqan odhan karno, wixii diinta khilaafsan in laga reebo unbaa wanaagsan. laakiin dhaqanka yaana loo qaadan oo keliya hati inuu yahay maaragtaan hees, inaan loo qaatana maaha qoobka ciyaar keliya. waxaa kuwaasi waa kuwa lagu cabiro dhaqanka, waa aaladaha lagu cabiro dhaqanka ummaddu leedahay xilliga farxadda iyo xilliga murugta. laakiin nolosha oo dhan weeyaan dhaqan. that's why aan mar walba u idhaahdo isma diidaan dhaqanka iyo diinta isma diidaan. laakiin haddii aniga experience-kayga la i weydiiyo waan ku dadaalnay inaan labada shaqo isku wadno oo awal la kala saari jiray. wayna isla socon karaan, wayna ku qanceen dadka intoodii badnaa marka hore kasoo horjeeday arrinkaas inaanay wada socon karin. waxay ku qanceen inaanay wax col ahoo ka dhexeeya jirin. ilaa intaan heshiisiinayno fannaankeena iyo sheekheennana dee meel ma tegi doono. waxaan noqonaynaa ummad kala go-an, yani nafsiyadeedii kolna dambaab kolle cibaadaysanaysa oo dhuumanaysa, labada goorba oo colis la ah ayaan ahaynaa. qofku gudihiisiiba colis ku leeyahay, wuxuu leeyahy maaragta ana waa la maxaynaya heesta baktiyaya,
heestana waqti uu dhegeysanaya uu dambaabaya isagoo siduu rumaysan yahay iyaduna dembi ba ahayn. halkana wuxuu leeyahay waan cibaadaysanayaa markana. markaa waa bulsho ku salaysan haddaan sidaa aan nahay ahaano inay been isku sheegto iyo munaafaqad oo marna ilaahay ka jirta marna ilaahay ka jirta ayaan noqonayna. laakiin waxaan rumaysanahay ummadda Soomaaliyeed ma badbaadayso mana bogsanayso mana horumari doonto ilaa ay fankeyga iyo diinteeda heshiinayaan, ilaa iyo dhaqankeyga iyo diinteeda heshiinayaan, ilaa culummadeeda iyo fanaaniinteedu ay dhinac kasoo heshiisanayaan, oy fanaaniinteeduna noqonayaan dad maaragtaan diineed, wadaadadeeduna ay noqonayaan dad dhaqameed oo dhaqanka col ahayn. waxaad arkaysaa wadaadkii diinta noo hayay oo af Soomaaliga colla ah oo leh maaragtaan af carabi haddaan lagu hadalin dad ilaahay lama noqonayo, oo dhaqanka carabeed haddaan la yeelanin dad ilaahay lama noqonayo, haddaan khamiis la xidhanin dad ilaahay lama noqonayo, oo rumaysan si ilaahay loogu dhawaado waa inaad carabowdo, waa inaad dhaqan carabeed qaadato. saas wadaadka aaminsan yahay. fanaankii wuxuu rumaysan yahay oo xaggan kale jooga ama aqoon-yahankii ilaa wadaadada xunxun laga takhalusayo ee maaragtaan ummadda la hadhay inaanan maarata la socon karaynin. waxa halkaa ummadda gaadhsiiyey in la isdilo oo la isgaaleeyo oo la istakfiiriyo waa markii lagu guuleysan waayey in la heshiisiiyo fanka iyo diinta, dhaqanka iyo diinta in la heshiisiiyo. taasi waa mashkilad taagan oo ummadda Soomaalida taala. dhinaca kale anigu kolkaan shaqadayda un ka dhaqaaqo waxaan arkay wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta way dhamaystiran tahay dhisma ahaan oo waa wax mudan soo jira, laakiin dhaqankeenii oo nolosheenii ah ilaa hadda ma saldhigin. fikradahaas aan qabo waxa weeyaan in wasaaradda dhaqanka kol kasta oo la dhisayo ama ha noqoto Jabuuti ama ha noqoto meelo kale oo ummadda Soomaaliyeed joogto isku dee dhaqan baynu nahay. waxaan rumaysnahay in wasaaradda dhaqanka laga reebo wasaaradaha kale la raacinayo ee isgaadhsiinta ama dhalinyarta ama maxayga ah, oo waxaa jira qaybo shaqooyin israaci karaya. waxaa kamid ah qaybahaas israaci karaya waan kala sheekaystay xataa madaxweynaha jamhuuriyadda. wasaaradda dhaqanka, dalxiiska iyo farshaxanka ayaa israacaya oo waxyaalaha kasoo baxaya dhaqaale ahaan hadday noqoto farshaxanka. waxa weeyaan farshaxanka markaan leenahay waa qalab agab dhaqameedka inagoo aan samaysano ee guriga lagu isticmaalo, hadday tahay dheriga, hadday tahay dagaalka, haddii ay tahay maarata carooska, alaab aan samaysano ayaa jirta oo dadkeenu ay yaqaanin ay tolaan ama ay qoraan. fankaasi ama farshaxankaasi waa qayb dhaqankeeni kasoo jeeda, laakiin inta badan waxaa la raacshaa wasaaradda ganacsiga ayaa la raaciyaa. tourismka waxaa la raashaa wasaaradda ganacsiga la raaciyaa. laakiin waxay ahayd inahaasi inay isbuuxiyaan oo wasaaraddii dhaqanka oo lagu soo koobay inay noqoto maaragtaan waax dhaqanka ka shaqeysa, library, museumka ama maaragtaan iyo archive-ka, xarumihii wax la dhigaya oo lacagi gasho inta badan xooguni uu galo. in dhinaca kale ee tourismka ilaan touristiga maxaa kuu keenaya? waxaa kuu keenaya soo damcayaan oo soo jiidanaya oo waxaad leedahay dhaqanka aad leedahay baa keenaya tourism. haddaad ciyaar leedahay ciyaaraha soo arkayaan, haddaad leedahay monuments iyo dhul maaragtaan taalooyin la dhisay oo qurux badan oo taariikhda kasoo jeeda way tegayaan. farshaxankaagay soo daawanayaan. tourism waxay u imanayaan ama tourist waxay u imanayaan waa dhaqankaaga. marka inahaas isbuuxinaya in dadka maaragtaan af Soomaaliya ku hadla meel kasoo joogaan iyo dalalka jaarkaba waxaan oran lahaa hala israaciyo wasaaradda dhaqanka, tourismka iyo farshaxanka oo wasaarad tayaal oo xoog leh ayay maaragtaan ayay noqonaysaa. wasaaradda arrimaha diinta iyada oo ay arrimaha diintu wada galayaan dhammaan nolosha qaybaheedii kale oo dhanna ay saameynayaan in iskeeda maaragtaan loo daayo. waata gabagabadii maxay tahay fariinta jeceshahay bal inaad dadka ku daawanaya aad u dirtid? waxa weeyaan fariintaan u diray waxa weeyaan dhaqankeena Soomaaliyeed waxaan nahay ummad reer guuraaga kasoo jeedaan nahay. ummadda reer guuraaga ah wax u kaydsan waa waxa maskaxdeeda ku jira. waxa ugu badan ee maanta haysanay inoo kaydsana waa malaha wixii gabaygu inoo reebay, kutub qoran iyo maaragtaan derbiye wax lagu xardhay oo maanta yaallo oo ummadii reebel waxaa ka haray laleeyahay ma hayno.
kolkaa waxaan odhan lahaa dhaqankeena inay ku biirto bal inuu nin walba gurigiisa meel yaroo kayd ah oo uu buugaagta dhigto oo uu wax ku akhrista inuu yeesho. arrinka labaad waxaan dadka ku dardaari lahaa waxa weeyaan aqoon-yahanka Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed ku hadla waqtigu ku luminay maartaan barjaha iyo majlisyada iyo mabrasyada in ay okay ku qaataan waqtigooda intii ay rabaan marqaanka, laakiin kolkay ka yimaadaan oo ay ka soo baxaan in ay waqtigooda qayb ka mid ah ay siiyaan akhriska iyo aqoon kororsiga inay siiyaan. marka qoys kasta oo Soomaaliyeed iyo guri kasta oo Soomaaliyeedna haddii uu ka maran yahay buug haddii uu ka maran yahay waa guri gubti amase maartaan kharaabo aan la deganeyn. waxaan xasuustaa saaxiibkay ama macallinkay Maxamed Cabdillaahi Riiraash ayaa wuxuu mar nooga sheekeeyey isagu Muqdisho deganaa markii dambe Djibouti buu soo guuray degay. wuxuu dhowr iyo 80kii ayuu igu soo maray buu nin Soomaali ah oo aan aqoon-yahan oo saaxiibo ahayn Oxfordna wada joogayna ayaa Muqdisho intuu ka yimid Djibouti igu soo maray buu. markaasuu yiri Maxamedow guryahaygii iyo hantidaydii Muqdisho Italy waan soo iibshay oo waan qaxaya waxaan qaxaya xaggaasaan u socdaa. waana yaa buu yiri maxaa ku dhacay maxaa ku qurbaha iyo dhulka ku geynaya. wuxuu yiri Maxamed ninkii wuxuu igu jawaabay arrin yaab loo ka sugayay. wuxuu igu yiri Maxamedow waxaan tegay guryo fara badan oo Soomaaliyeed oo magaaladeena Muqdisho waxaan ka waayay guri ay buugaagi taalo ayaan ka waayay. marka ummadda guryaheega ay buugaagi oolinna waa ummad rugmanaysa. marka rugmadka hortii ayaa anigu sii qaxayaa buu yiri. marka waxa xaqiiqa ah meesha aanu buug iyo qalin oolin xigmad iyo caqli ma yaalin. wax maanta madaxa lagu ururin karaa ma jiraan. waa inaa wuxuu intuu doona alle ka la iska qoro meel la dhigo la reebo. marka dardaarankaga iyo taladeeda aan usoo jeedin lahaa inta iga da'yar inta iga waaweyn waxba oran maayo. wixii la qoraa quruma hadhay muxuu hadal qiimo leeyahay. marka kolley xagga qoraalka lagu dadaalo qof walowna gurigaaga buugaaga dhigo isku dadaal at least hadday ugu yartay maalintii inaad 10 daqiiqo 15 daqiiqo wax akhrido marka aad hawlahaaga soo qabsato. taasi waa talo wanaagsan oo fiican. runtii adduunkuna imika waxa uu u guurayaa wax akhriska iyo qoraalka. waayo wixii la yidhi iyo hadalku ma aha had iyo jeer wax sugma. laakiin inta badan buugga yaala wuxuu noqon doonaa meel laga tixraaco halka aynu ka nimid waxa aynu nahay iyo waxa aynu doonanaba. marka taladaasna waxaan jeclayn si fiican loo qaadan doono. wasiirka waxaan aad uga mahad celinayaa waqtigiisa qaaliga ah ee uu na siiyey iyo weliba isagoo hawlo gaar lahaa. aad baan kaga mahad celinaya wasiir. waayahay daawadayaal intaasi ayaynu kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkani qaybaha badan isugu jiray ee aanu ku wareysanayo wasiir Dr. Aadan Xasan Aadan Belelo oo ah qoraa abwaab hal abuur wasiir iyo weliba maxay ahayd talent ku ah dhinaca xalinta khilaafaadka iyo istiraatiijiyadda oo runtii ka gaaray takhasusna uu ka sameeyay. inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan xaggayga idinkaga tegaynaa fi amaan illah waqtigu haydin wacnaa insha Allah.